بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalka muslimka ah oo meel kastoo aad joogtid ku soo dhawow barnaamij cusub oo aan ugu magac daray taariikhda saxaabada oo runtii aan idinkugu soo gudbin doono saxaabi walba oo ka tirsanaa saxaabada islaamka intii uu Ilaahay i karsiiyo insha Allah. balse marka hore waxaan ka codsanayaa daawade in aad subscribe saarto channelka lana wadaagto asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan. haddaba daawade haddii aan u gudo galno bilowga barnaamijkeena baahintiisa taariikhda saxaabada, waxaan ku bilaabeynaa Caasim bin Thaabit oo ah saxaabigii isagoo geeriyooday jirkiisa ay difaaceen shinnidu. saxaabiga Caasim bin Thaabit oo ahaa nin reer Ansaar ah waxa uu ka qayb galay dagaalkii Badr iyo Uhud. dagaalkii Uhud waxa uu ku dilay laba wiil oo walaalo ahaa oo uu dhalay ninka la oran jiray Dalha ibn Dalha. labada wiil hooyadood waxay ahayd reer Maka. waxa ay nadar ku gashay inay u aargudo wiilasheeda. waxa ayna ku dhaaratay in madaxa Caasim bin Thaabit ku cabto khamriga. subhanallah, cidii keentana waxa ay u sheegtay in ay siin doonto 100 halaad oo geela. sanadkii afraad ee hijriyada waxa uu soo wafdiyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koox kamid ah qabiilka Udal iyo Qaara. waxa ayna nabiga u sheegeen in qabiilkoodii dad ay ka islaameen oo ay u baahan yihiin dad saxaabada ah oo soo bara diinta islaamka. nabiga sallallahu alayhi wa sallam kooxdaasi wuxuu ku daray 10 nin oo uu hogaaminayay Caasim ibn Thaabit oo uuna ku jiray Khubab ibn Adiy. saxaabadii iyo kooxdii way israaceen. markii ay gaareen deegaanka Rajiix ayay kooxdii la socotay saxaabadu ay u maleegeen shirqool. waxa ayna u habar wacdeen qabiilkoodii. kadib saxaabadii ayaa la soo hareeyay, iyaguna waxa ay fuuleen buuraha. nimankii Carbeed ee shirqoolka maleegay ayaa haddana u ballan qaaday in aysan dilayn haddii ay isdhiibaan. kadibna 3 kamid ah saxaabada ayaa isu soo dhiibtay. hase ahaatee ballankii waa ay burburiyeen Carabtii. waxa ayna 2 kamid ah saxaabada u gacan geliyeen reer Quraysh si ay ugu aargudaan raggii lagu dilay dagaalkii Badr. ninkii saddexaadna waa uu la dagaalamay, kadibna waa ay dileen. raggii kale ee buurta ku haray ayaa iyana waxa ay bilaabeen dagaal. ugu dambeynna waa la dilay. raggaas waxaa kamid ahaa Caasim bin Thaabit. isagana waa uu dagaalamay, balse fallaadhihii iyo leebkii ayaa ka dhamaaday. markii uu arkay in la dilay ayuu Alla baryay oo uu ku dhahay, Ilaahayow, sida aan u difaacay diintaada galinkii hore, adiguna jirkayga u difaac galinka dambe. Caasim waa la dilay ugu dambeyn. waxa ina gaaladii doontay in ay madaxa ka gooyaan si ay u helaan abaalmarinta 100 halaad. balse waxa Alla u soo diray meedkiisa Caasim bin Thaabit shinni oo dhammaan jirkiisa ay ku xubmatay saxaabigaas. markii ay Carabtii arkeen waxa ay dhaheen, galinka dambe ayaan u soo laabanaynaa. nimankii Carbeed markii ay soo laabteen waxay waayeen meedkii Caasim bin Thaabit. mise waxa yimid baroob, waxaana meedkaasi qaaday daadka roobka uu watay. wayna garan waayeen halka uu ka baxay meedka Caasim bin Thaabit. sidii Caasim uu Ilaahay u difaacay diintiisii ayaa Allana u difaacay jirkiisii markii uu dhintay. daawadayaal dhageystayaal, barnaamijkii taariikhda saxaabada oo aan maanta ku soo qaadanay Caasim bin Thaabit, Allaha ka raali noqday, waa naga intaa.